daawadayaal kusoo dhawaada niman maanta magaalada Buuhoodle kaga dhawaaqay inay yihiin jabhad cusub oo ay magaceeda ku sheegeen Fly Scott balse nimankan sheegtay inay yihiin jabhad cusub oo maanta ka soo muuqday warbaahinta deegaanka Buuhoodle oo ay halka ka hadleen magaalada Buuhoodle gudaheeda ayaa raggaas xidhan direeska ciidamada waxaa ka mid ah askartii ilaalada ahayd wasiirkii hore ee caafimaadka Soomaaliland Salebaan Xagla Toosiye balse daawadayaal nimankan sheegtay inay yihiin jabhad cusub oo ay magaceeda ku sheegeen Fly Scott oo qaarkood ka mid yihiin ilaaladii wasiirkii hore ee caafimaadka ee xukuumadda madaxweyne Silaayo Xagla Toosiye ayaa sheegay inay yihiin jabhad cusub oo ay tilmaameen in ay ka soo horjeedaan ama ay ka cadhaysan yihiin xagga saami qaybsiga Soomaaliland ee xukuumadda Muuse Biixi Cabdi balse daawadayaal xogo kala duwan oo aanu niga hayno arrimahaas iyo wasiirkii hore ee xukuumadda Axmed Silaayo ee caafimaadka Xagla Toosiye waxaa sababay in ilaaladiisii askartii la socotay ee markii horena ka soo raacday jabhadii hore uu hogaamin jiray Xagla Toosiye ayay ka mid ahaayeen ragga halkan hadda caafimaadka ee xukuumadda Axmed Silaayo oo khilaaf xoogan uu ka dhaxdhacay madaxweynaha cusub ee hadda Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu socdaal ku maqnaa wiilagii hore ama toddobaadyadii hore ee ugu tagay Imaaraadka Carabta balse waxa la sheegay in toddobaadkii dhaweed ee aynu soo dhaafnay uu ku soo noqday magaalada Hargeysa hase yeeshee xogo kala duwan oo aanu ka helay dad lagu kalsoon yahay ama ka dhow wasiirka Salebaan Xagla Toosiye oo ahaa wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumaddii madaxweynihii xilka ka tagay ee Axmed Silaayo ayaa la sheegay in isagoo shalay kusii jeeda deegaanada gobolada bariga gaar ahaan magaalada Buuhoodle lagu qabtay counterholka magaalada Burco ee agagaarka jidka mara City Plaza isagoo oo kusii jeeda dhinaca iyo deegaanka Buuhoodle isla markaana waxaa sheegay inuu wasiirkii hore ee caafimaadka Salebaan Xagla Toosiye halka laga qaaday gaarigii isla markaana dib loogu soo celiyay magaalada Burco sidoo kale xogahaas ayaa sheegay in Salebaan Xagla Toosiye uu ka dambeeyo raggan sheegtay inay yihiin jabhad cusub ee kaga dhawaaqay magaalada Buuhoodle ee uguna yeedheen magaca jabhadda cusub Fly Scott ayaa la sheegay inuu isagu ka dambeeyay arrinta abaabulkaas taasoo daaran ama la sheegay inay sabab u tahay Salebaan Xagla Toosiye oo quudareynayay in uu wasiir ka helo xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi balse markii uu Muuse Biixi Cabdi ka reebay magacaabistii golaha wasiirada ay arrintaasi keentay in uu caroodo sidoo kale Salebaan Xagla Toosiye ayaa arrimaha u sameynaya arrintan ayaa la sheegay in ay sabab u tahay isagoo ka xanaaqsan hogaamiyaha kooxdii Khaatuma Professor Ali Khaliif oo la heshiiyay xukuumadda Soomaaliland taasoo uu arko maadaama uu deegaanadaas gobolada bariga ee Sool iyo Buuhoodlaba ee beelaha dhulbahanto oo Salebaan Xagla Toosiye iyo Professor Ali Khaliif ay ka soo jeedaan uu arko mid waqti xaadirkan isagu xaqii deegaanadaas iyo beelahooda ay xukuumadda Muuse Biixi wax ka weydiin doonto ama uu isagu kaga awood badan yahay dhinaca xukuumadda Muuse Biixi aadna isku dhow yihiin Muuse Biixi iyo Ali Khaliif arrintaasina ay tahay mid ay iyagu markii horeba isku hayeen hogaamiyihii hore ee kooxda Khaatuma Professor Ali Khaliif iyo Xagla Toosiye sidoo kale Xagla Toosiye ayaa arrintan hadda ilaaladiisii askarta ahayd
markii uu ahaa wasiirka xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee caafimaadka ee ka soo muuqday warbaahinta magaalada Buuhoodle ayaa ah arrin aad u foolxun inuu Saleebaan Xagla Toosiye uu arrintan u sameeyo xil ku raadis taasina ay tahay mid dab ku sii shidaysa khilaafka u dhaxeeya Muuse Biixi Cabdi iyo Saleebaan Xagla Toosiye gobolka Buuhoodle ka howlgala la yiraahdo Falayskood waxa weeye waxaan u sheegnaa cuqaasha iyo dhalinyarada iyo waxgaradka Buuhoodle jooga waxaan u sheegnaa qof Soomaaliland ka socda ama waxaan ku daba dhilibtir halkan ma imaan karo gacan baan wax kaga qabananaa hadii ilaahay ma waxa ka shaqeynaya wanaaga iyo waxaan ku wada noolaanshaha waxaan ku niri waan soo dhaweynanaa waxaan u sheegayaa dadka reer Buuhoodle waxaan u sheegayaa Soomaaliland wax ka socda ma ka socda inaanu gacan aanu kaga qabanano wax ciidamadan geediga SLM ee geediga ku ah Puntland iyo maamul geediga ku ah inaysan naftooda been u sheegin